Assalaamu calaykum dhammaan asxaabteydii wada xiran dhammaantiin waani wada salaamay soo dhawaada kuna soo dhawaada channelkayga haddaa igu cusubtiin subscribe iyo saar gambaleelka furasa oo aragtid video walba aan soo gelinaa insha allah haddaa ila joogteen commentiga like iyo share ra'yigiin waa noo muhiim insha allah asxaabteyda maanta ujeediin waxaani wadaa basbuusa ya macmacaan oo aad i macaan badan waayo casriyo fiican xaajiga mis xaajiyadaada u samaysan kartid marka waa kaahay soo dhawaada ha ismartiyeenina asxaabey had adeega dhan meesha ayaan kusoo diyaarsaday sa ujeediin wax walba u baahanaa meesha ayaa soo dhigtay meeshaan waxaa igu jirta 2 koob galey galeyda zaaid inay u shiidaatan ma rabo inay kuskus waaweyn ka ahaataan ma rabo waa kaas meeshaan waxaa igu jiro koob caano caano liida mise caano boorasa oo kasiisid caanaha ay meeshaan budada ay ugu jirto halahan ayaa isku dar doonaa insha allah wax kala meesha adeeg kala doontay aan soo qaadanay marka meeshaan waxaa igu jiro half oo koob oo maxaa la qumbaha kuskuska waaye qumba oo nonol waa ujeediin oo maleena qumbahaas oo baahan tahay koob oo halfkiis koobka ku cabirtan waan tusi doonaa insha allah waakina hada koobkii ayaa ku shubanayaa sa ujeediin koob nus koob iyo waxa waa meeshaan ku jira hal koob caano liido iyo half oo waxa 2 koob oo waxa ku jiro oo galey intan waxaan ku haystaa hal koob oo sokor waa sokorta caadiga mise halahana had isku qasaya iyo waxa kale oo isku qasi doona insha allah baking powder iyo vanilla insha allah waa kana baking powder waa kana kiciso mise u kasaysid baking powder baahan tahay qaandada afkeeda hore ku cabiran kartaa marka ay arki doontiin qiyaasan doona insha allah aad iyo aad u macaan badan laga ma sheekeyn karo waa ka halfkaas zaaid hada ugu buuxisid wuxuu ka furfuraa ma fiicno inuu xafiis wax yar oo qiyaas ina ku darsadid vanilla carafta ay caadi waa waxa rabtid ku darsan kartaa laakiin waxa daran baking powder-ka zaaid iskaga buuxinin wax yar oo qiyaas macquul ina ku dartid ma ahna hadii kale waxa ka furfuraa ma fahmino waa kana galeyda isticmaalay bahalka reer Sweden hadaa tihiin magaca Sara miya dukaanka carabta iyo meelahaas ka heli kartiin ayaa soo gadan kartiin marka aad iyo aad u fiican yahay galey oo zaaid u shidna maahan wax oo kuskus oo saas ahna maahan hada baking powder-kii caano boori iyo meesha waxa igu jira sokortii galeydii vanilligii wax kasta oo isku dhaxqasay waa ujeediin oo maleena marka inta ku wada shubanaa kulli waa ka meeshaan ku wada shubanaa kulli waa ka wixii dhan macal qumbihi halfka qumbaha bakeeriga ahay oo ku jira waa ka soo ujeediin ma sha Allah sidaas isku qasaysaa waa isdhexgelinaysaa asxaabey had sidii saana isku dhexgeliyay si fiican saan isku dhexgeliyay kadib adeega kale ayaa ku soo dari doona insha Allah maxaa lahaay basbuusadan aad iyo aad u macaan badan tahay waxa ka heli doontiin saan ugu helay maxaa la tamaka isla markii la sameeyay isla markii hore laga cunaabo baba hartaba sida loo sameeyo ma sha Allah ininkan waxa rajeynaa in aad ka faa'iideysan doontiin insha Allah aad sameeysan doontiin familka ciyaalka xaajiyada ya loo sameyn doono insha Allah waa kana hadda waxa ku soo dir doona adeegi kale iyo harsanaa insha Allah laba xabo ukun iyo waxa kale aad ku soo dir doona saliida iyo kashtada insha Allah saasoo noqdaysa ujeediin diyaar waa hadda wixii dhan waa isku dhex qasay sidaas inaa isku dhex gelisid rabaa wax dhan adeeg dhan inaa is dhex gelisid oo si fiican isku dhex gelisid marka waa ka hadda asxaabey sidaas isku dhex geliyay hadda ukuntiya soo qaadanaya laba xabo ukun u baahan tahay waa ka qiyaas yar oo ma sha Allah macquul sameysanayaa hadda rabto qiyaas oo ka badsan kartaa saxanka sameynaysa ayay ku xiran tahay waa kana had ukuntii had ku darsanayaa saa ujeediin laba xabo ukun ayaa u baahan tahay waa kaay
qaylo yar haddaa maqlaysiin banaanka waaye kala raali noqda insha allah. Ciyaala banaanka khaylnooyin ma fahanteen. marka meeshaan waxaa ku haystaa kashta ayaa haystaa. Kashtada ujeediina umaleynaa. Kashtadan waxaa ka heli kartiin dukaamada carabta ah. Way adagtahay saa ujeediin. Kareem waaye, kareem oo kashta la dhahayo dukaamada carabta ah haddaa aadin waa ka heli doontiin insha allah. waa ka waa kana maxaa la dhahay waa wixii dhan hal gasac oo baahan tahay inaad ku samaysatid. Meeshaas kalena waxaa iisii yaalo koob oo buuxin oo maxaa la dhahay saliid ah. koobka afka hore ma buuxinin saliid wax yar ka reebay koobka afkiisa hore. caanahana haaf oo wax yar oo waaye. hadda waa kana saliidda soo qaatay saa ujeediin. saliidda ma buuxinin afkeeda ujeediin umaleynaa. zaa'id ma buuxinin marka wax yar oo saliid hadda ku dar rabaa koobkii oo afkiisa aan buuxinin. koobkan ayaa ku cabirtay wax walba qiyaas kasta aan sameynayay. koobkan ayaa ku cabiray burka, sokorta, qumbaha, wax walba caana booraha, wax walba koobkaas ayaa ku cabirtay. waa kaay saa ujeediin waa kaas saabay. hergebna waa jirjiraaye dhuunta haddaa hadalkayga soo fiican uma qali karin hergeb ay ahaayo. halaana isku qasaynaa. kadibna caana caadi oo qasan oo ii diyaarsan waa kaa geeska u yaalaa ujeediina umaleynaa. waa kana caanihii. koobka caanahana koob buuxa ma ahan wax yar oo qiyaas afka ma buuxinin. haaf oo wax yar oo ka badan waaye. haafna maahan wuuna ka badan yahay koobkana ma buuxo. marka waa kaas hadda waxaa bilaabi doonaa insha allah inaan isku wada qaso. makiinadana iskugu wada qasaa dhammaan adeegii wixii dhan meesha ugu wada jiraan. haddii rabtid waxaa ku qasan kartaa caadi maxaa la dhahay qaando mise bahalka lagu garaacayo. laakiin makiinada aad iyo aad ugu fududahay. waxay ugu fududahay waa hal mar wixii dhan isku qasmayaan wayna si fiican sidaa rabtidna waa isku dhexgalayaan. marka saas daraadiisa aad iyo aad u fiican tahay inaad makiino ku samaysid. haddii kalena oo makiinaha ay haysanin maano caadi gacantaada ayaa ku samaysanaysaa. hergebna waa jirjira ayaa maan hergebka socda ilaaha naga wada haayo. marka dhuunta xataa way xiran tahay ujeediina umaleynaa. yaa xoog ayaa lagu soo hadlooyaa sida ininkan wax u faa'iidaysatiin. yaa ininka daraadiina yaa anuu hergeb haya xataa soo hadlooyaa ujeediina umaleynaa. maasha allah ininkan ilaahani wada barakeey ilaaha naga haayo. maxaa la dhahay wax kasta cudur kasta oo socdo kan iyo labadan gasac hadhow ayaa gadaan liiga tusin doonaa waxa lagu sameyn doona insha allah. hadda saxankan ayaa kusoo samaysay. saxankan ayaa ku qiyaastay. saxankan hadda saxan ka weyn ay haysatid qiyaasta le ayaa badinaysaa. qiyaasta ma fahantay. qiyaastaada wax haddaa wixii aan sameynayay laba jibaarkiisa ayaa sameynaysaa. hadda waa kana foornada ayaa soo bixi. foornada marka kugu jiran waxaa aad muhiim u ah inuu ku joogo dab qiyaas oo kaa gubanin. haddii kale uu kaa gubanayaa dab oo waxaa rabaa inuu ku qiyaasatid dab oo macquul ah sidoo kaa gubanin. yani inuu u karaa fiican tartiib ah. hadda waa iga soo baxay. fargeeto ayaa soo qaatay. fargeetada ayaa gelgelinoyaa saa ujeediin. waxaa rabaa hadhow caanaha kale oo kor ugu shubaayo inay ii galgalaan boq walbo meel kasta inuu ii galgalaa rabaa insha allah. marka waa kana hadda soo guduudatay zaa'id oo igu soo guduutay ujeediina umaleynaa. maasha allah lagama sheekeyn karo. marka qofkii cunle sheegi karo markaa soo samaysatiin ayaa iisoo sheegi doontiin insha allah. yaa beebigeygana geeskeyga ka hadlooyaa raali noqda insha allah. waa kana sidaas ayaa kusii wadaysaa gees dhaaka gees meel walba ayaa bubujinaysaa. marka waa kaay saas ay yeelaysaa.
marka hadda wili sidii aan ku sameeyey waxaad soo qaatay maxaa la caanaha way la arki doontiin. Waan igu soo dhaweynaa kaamirada. Caanahan waxaa ka heli kartiin dukaanka carabta caanaha kan adeega maahan kan wax waaye biyo waaye. midka adeegana waa soo qaatay oo sokorta leh, kan sokor ma leh, caano oo biyo waaye. marka wax yar inuu ii qooyo ayaa rabaa. saas uu ig yahay. caanaha kan kalena caano oo waxa waaye oo adeeg oo sokor leh. kan sokor ma leh, kan kalena sokor uu leeyahay. waa kana kan kale oo sokorta leh sidaan uu ig yahay. kan kalena waa kana original ku qoran. kan kalena waxaan ku qoran yacni sokor caadi waaye. sokor oo caano iyo sokor leh waaye. kan kale soo jijiitamayna waa isla arki doonaa. caano oo waxa waaye waa kaas sidaas uu ig yahay. kan kale 2 gasac waaye, midna saan waaye, midna gasac caanaha la isku shabaha. labadan zaid la isku qaldaa. waxaa u baahan tahay 2 xabo oo midna noocan midna nooc kale marka waa kaas hadda korka ayaa si fiican u marmarinayna hadda. maasha Allah. hadaa rabtid qumba ayaa kor ugu shuban kartaa marka macaankan amrisid kor. qumba ayaa soo qaadan kartaa kor ayaa ugu shuban kartaa. laakiin ana hadda qumba ayaan ku shubanayay. qumba la'aan maadaama qumba dhaxda ugu shubay oo dhaxda waba ku jiraba kor ma u baahan ayaa isleeyahay. ma barowiya ma ku shubanin ma fahanteen. adaartiin inanka waxaa nin kastaba ra'yigiisa iyo maskaxdiisa waaye. an laakiin waxaa jeclahay dhaxda markaa ku daro inaa kor ugu shubin maadaama qumbihii laba gooraba maxaa la lahaay wuu kasoo dhadhamaa soo maahan. soo ma u baahnid. waa kay asaasaa macaankii igu diyaar u yahay. waa isla arki doonaa markaa dhameeyey oo wixii dhan ama mariyey. maasha Allah sidaan noo soo baxay diyaar sariideena xaajiga xaajiyada ciyaalka waa u geysan kartaa. kaala arag waa sameysan kartiin insha Allah. dhadhankiisana lagama sheekeyn karo siduu u macaan badan yahay. wax la sheegi karo qofkii sameystay markaad soo sameysatay insha Allah ila soo wadaaga commentigana igu reeba ra'yigiina insha Allah haddaa ka hesheen. insha Allah commentiga igu soo reeba. asxaabta hadday igu cusubtihiin subscribe-ka, like and share-ka insha Allah waa xagiina. waa ka asxaabay waa kana casriyeed diyaar hadda ciyaalka iyo xaajiga ayaa la siin doonaa insha Allah. asxaabta soo dhawaada inkana kaay ila casriyeysta. mac salaama. bye bye.